بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مقعي واسمه جمال علي، وحن قيبك هاي برنامجك أوهي لأهليك هنكله أو سودي ري ورالكي عبد الرحمن جستير، وحن كقيب قادنا يا موضوع إسكاشيغا. إسكاشيغا وحويا ومركب بلشو وحوض قبسدان استاجيران iskaalmaystaan iscaawiyaan iyagoo oo midba midka kale ku tiirsan yahay. iskaashigu waa wax wada qabsiga ama shuraakada hal qof wixii ka badan, taas oo la isla kaashanayo maskax, maal iyo muruqba. iskaashiga dhinaca diini ahaan marka la eegayo ama dad islaam waynu nahay, waxa weeyaan in la isla kaashado خير دمانتي أردن أما ليسو كالميست خير دمانتي أردن إلا ليسو كاشدو إلا جهر تجشر دمانتي وح مسألة دليلوها آيات الله سبحانه وتعالى وكوري قرآن كيس كريم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يسو كاشدا وناجا يالك عبسجا هاي سنا كاشرين حمانتا. haddii aan ka hadalno ahmiyadda iskaashiga waxa weeyaan horta Ilaahay baa quraankiisa ku sheegay, waana shay hadii shayga quraanka lagu sheego ahmiyadiisu leeyahay waliba la isku amro. marka labaad waa sunnadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. marka saddexaad waxa weeyaan waa kii rasuulku sallallahu alayhi wasallam laha man nafasa 'anil mu'mini kurbatan min kurabil dunya نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة. قف كيف إذا ولالكي لباتك وهي ستأدونك إلى هنا وحك في إذا لباتك وهي ستأسجن آخرة. مركالك وحتى جرنيسا إن لبات إن إسكاشجو أي أهمية دولة هذا بالشدة. إن إسكاشجو وحلقة مرمان وتهاي بالشدة وهي وحلقة هي لا تغير هذا الله. وهي رسولك صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إلهي وحلت شراء ومعي سياهي قف وينت ولالكي لك عشانيو. هذين كهذلنا وكي قبيقة الصوماليات عبد الله سلطانتي مع دواكي لها قعمه اسودا عاويان شيناك وعسلين. ماركالك واحد كقرنيسها إن حيث علي وإسكاش يقول لي هاي فائدة بردن وبلشدنا لقما مارمانو yahay ujeedooyinka iskaashiga hadii aan ka hadalno ka waxa weeyaan kor u qaadno diin suuban oo nagu soo dajiyeen behen laba waxa marka diinta ka siimida in wanaagina la faro dadka xumaantiina dadka laga reebo, taasina waa in iskaashi laga wada yeeshaa. talabaad waa in la isu kaashado in danta guud iyo arrimaha bulshada laga wada shaqeeyo. tasaddexaad waxa weeyaan in la isu kaashado ugargaaridda danyarta. waa in la isu kaashado oo kale waxa ka simid horumarinta bulshada ama deegaanka, sida in la dhiso iskuulo ilaamiyo la dhiso oo la isla kaashado, oo in la dhiso dhakhaatiir, in la dhiso goobo ay dadku ku ciyaaraan ama dhalinyarta ay ku ciyaarto. taasina waxa ku jirtay barnaamijyadii iska wax u qabsay iskuulo badan iyo waxyaabo badan oo aynu maanta ku intifaacsano wali alaankan iskuulada kamid yihiin oo laamiyada kamid yihiin iska wax u qabsan lagu dhisay. haddii aynu ka hadalno faa'iidooyinka iskaashiga waxa weeyaan faa'iidooyinka iskaashiga waxa kamid ah inay bulshadu u fududaato hawl qof keligii ku cuslayd. wax qabashada hawlaha culus oo qof keligii aanu qaban kareen ayaa u fududaanaysa marka bulsho ay wax wada qabato. waxa kale waxa weeyaan in bulshada ay isku tiirsanaan ay hesho oo iyo isku dheelitirnaan. inuu markan helo 10 qof oo ila fikira wax ila qabanaya maskax iyo maal iyo muruq baan naftada aan wada hurayna. wax badan baa hagaagaya, wax badan baa la horumarinaya. waxa weeyaan waxa kor u qaadma marka faa'iidooyinka iskaashiga la hadlayo dantii guud baa kor u qaadanta. waayo waxa qiimaha markan ay soo wada kaashaneen laga wada shaqeynay dantii bulshada oo laga wada shaqeynayo waxa laga iimanaya dantii gaar ahayd. waayo anigu waxaan ka iiman karaa dantayda gaarka ahayd oo ilaawayo maadaama iskaashi jiro dhalinyartii baan oranayaan isla fikirka hayn aan ka qaadano. waxa la gaaray isku filnaansho dheelitiran.
isku filnaanshahaas dheeliga tira waxa kamida iskuuladii uma baahanaysid cid kale hay'ad iyo caawisay waxa uma baahanaysid laakiin waxaad u baahan tahay inaynu maskaxdeena iyo muruqeena iskaashiga aynu ku dhisno waxa la gaaraa horumar dhinac walba ah waxa la gaaraa inay bulshada isbuuxiso midka kale uu ku tiirsanaado waxaan u soo qaadanaynaa وكي لها حاجات نفقلع الكودة تربي هلبها أذكر جوياني هدي إني بميل تاجنت هاي رحمة فنتين هالكا واحد كجرنا إسا إن وذا شركة إياه وذا قبسه يسكاشجو ويهاي بالشدة إن استيرسه وحكرات هالكا إن وكي لها عبد الله موسى طبعا تابدا إلا بقع موت تمرقي عشان هدي ميدك تكلي تاجنت هاي تهرم جويسيني تسكا waxa la qaadaa markay tiirisaa bidix tiska waxa la qaadaa markay tiirisaa bidix marka in bulshada iskaashato ayaa laga sheekeynaya way kaalin muhiim ah bay ka qaadatay abwaaninta Soomaaliyeed in iskaashiga waxa laga wada shaqeeyo hadaba sheekooyin waxaan ku soo afmeerayaa kulli sheekooyin fara badan baa ka jira iskaashiga laga wada sheekeeyo inta badan bulshada waxaan ku soo qaadan doonaa sheekadii ugu dambeysay tusaale waxaan u soo qaadan karnaa sheekadii 9 ulood iyo 9 wiil iyo odaygii dhalay bari waxa jirtay wala bariyaha kamid ah waxa dhacday in oday uu dhalay 9 caruur markii uu daadii ku soo dhamaato muddo way noqday wuxuu sidii carruurtaadii wax tusaale cadna u ah samee una hoga tusaale waxna ugu sheeg una dardaar marka uu dardaarmay wuxuu ku wada soo gooyo ulo 9 ulood nin kasta oo hal ulkeen وشيبو سoo qaadeen way soo fadhiisteen uu soo fadhiisay markuu u dardaarmay wuxuu ku nin kasta oo uu shaada kala jabi uu shibay mid kasta waxba kuma qaadan mid kasta oo shiisi uu kala jabiyay markii dambe hadana wuxuu diray 9 ulood oo kale 9kii ulood kale buu isku xiray wuxuu ku kala jabiyay hadaba nin kasta taagtii iyo tamartii uu isku dayay waan u taag waay kadib wuxuu ku hadii sida 9ka ulood isugu duubnaataan waad gaaraysaan oo wax noqonaysaan dadka isugu kaashataan oo wax isugu jirtaan wax walba wad ka hormarinaysaan bulshada wad hormaraysaan wax walba dhinac walba wad ka hormaraysaan markastana gacmo wada jirbay wax ku gooyaan 9ka ulood waxaan u soo qaatay in bulshadu ay istiiriso dhalinyartu ay iskaashadaan wax wala wanaaga la iska kaashado wax wala xumaanana in laga hor istaago oo la joojiyo ayna isla kaashano iskaashigu aad buu muhiim agteena inoogu yahay waa shay aynu ku tamarinayno waa shay aynu ka hormarayno dhalinyaro ahaana inaynu ka faa'iideysano iskaashiga oo gobol kasta iyo meel kasta dhalinyaro ka joogto la iskaashadaan ku talinaya waxaan mowduucayga ku soo afmeeraya halku dhigan oo ah iskaashi bulshada awood kordhiye ogownina kalimo aan baxo hadda iyo hadhow mar kasta iyo meel kasta u hiiri halyeega han kale